السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا جماعة أصحابتي كلا دواني إحنا على تيك توك waxaan maanta insha Allah idin soo gudbin doonaa sida computerka marka iibsanayso loo eegaa inta maskaxood ee computerka ku jira inta CPU ee computerka ku jira sida loo check-gareeyaa computerka waxyaabaha ugu qaalisan ee computerka lagu xusho waxa kamid ah maskaxiisa marka maskaxda sameyn doonaa inaan tijaabino xawaaraha maskaxda xawaaraha ugu yar ee leedahay xawaaraha ugu sareeya maximum speed iyo minimum speed waxaan sameyn doonaa marka halkan aan tagi doonaa task manager baan leeyahay task manager marka soo dhufto click baan siinaya task manager ku inoo soo kacaya markuu soo inagu soo kaco waxa laga yaabaa inuu sidoo kale kugu soo kaco marka koobaad waxaad ku dhufanaysaa more retire waxaad tagaysaa performance waxaad tagi doontaa CPU waxaan marka hore ogaanaa xawaaraha ugu sareeya uu leeyahay iyo xawaaraha ugu hooseeya uu leeyahay xawaaraha aniga ugu hooseeya uu leeyahay waa 2.10 gigahertz xawaaraha ugu sareeya uu leeyahay 2.7 gigahertz marka computer waliga haysan 2 ka hooseeya computer 2 ka sareeyo nibso 3 baa imka la sii galaya computer 2 ka hooseeya marka haysan aad buu culays badan marka waxaan kala doonaynaa isla faano computerka imisa maskaxood baa ku jira sokotiska hal maskax baa ku jirta ayuu ku sheegayaa marka physical leego ama maskaxaha computerka CPU ku jira waa halkii wuxuu leeyahay halkaas CPU wuxuu leeyahay laba core laba dhuumood buu leeyahay haddaba wuxuu logical ahaan marka uu eegno maskax ahaan marka loo eego halka maskax waxay u shaqeynaysaa afar maskaxood bay u shaqeynaysaa halkaas CPU u jira afar maskaxood oo kale u dhigma logical ahaan marka loo eego ay physical ma logical ahaan marka loo eego weeyaan marka imisa core baan haysan karaa waxaan haystaa 8 core baan haystaa marka computerka markaad iibsanayso waa inaad qodobada iska eegtaa minimum speed-ka iyo maximum speed-ka iyo inta sokadii kugu jira haduu hal yahay logicalkaasi inaan afar ka yaraan coreskaasi inaanay afar ka yaraan ayaan kugu la talin lahaa inaad marka doonayso check ku samayso computerka meelaha ugu muhiimsan computer laga check gareeyo maskaxda ka mid ah marka waxaan filayaa casharkaas inuu aad iyo aad muhiim yahay casharada kale ama waxyaabaha kale computer lagu xusho video kale insha Allah ku soo diyaarin doonaa wanaagsantiin wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا جماعة أصحابتي كل الدول إن على تيك توك إحنا إن شاء الله ما تروحين دلوقتي دونا قيبتي نيش شنار قابك كمبيوتر لوتش كريه حسيت هروح أكسر النقاب كالنضوج أما عشر كروح أكسر النقاب كالنضوج لوتش كريه عشر كمان هروح دونا عشرة وقومي مستن وحياوها وقال سنة كمبيوتر لقت شيء كريه ما كمبيوتر بسيسو محا كمبيوتر لقت شيء كريه بالسويدين كرام وح كمبيوتر لقت شيء كريه إنه فيرتشوال كمبيوتر وكوش غيره فيرتشوال كوعي هي in computer aad computerka gudihiisa inaad computer badan ku dhex shuban karto sida Windows Server sida Windows 10 Windows 11 Windows 7 Linux sidoo ku dhex shuban kartaa waxaan ku arkay cilada arday far badan oo aan dhigay course Linux ayaa Linux ka virtual baa ardaydiisa ugu arday far badan baa nadwag aan u shaqeynay virtualku ka sidee loo check-gareeyo computer marka iibsanaysid nadwagani virtualkani ma shaqeynaya mise shaqeyn maayo maxaan sameyn doonaa marka halkan aan tagi doonaa waxaan qori doonaa task manager waxyaabo badan baa runtii laga eegaa aad iyo aad baan isha ugu haynaa task manager marka computer check gareeyo waxaan tagi doonaa CPU-ga waxaan ka sii dooran doonaa halka virtualization ay ku taalo virtualization aniga hadda waa enable way shaqeynaysaa macnaheedu haday disable tahay enable tahay labadaba way shaqeynaysaa oo disable qofku markuu doonayo inuu ku shubtaan enable buu ka dhigan karaa marna disable buu noqon kartaa horta inay halkaas ay ku jirtaa muhiim virtualization inuu yaalo disable iyo enable important ma qofkii doona disable buu ka dhiganayaa qofkaan isticmaalna inay disable buu ahaanaysa qofkaan isticmaalna kii isticmaalna enable buu ka dhiganayaa laakiin qodobka muhiimka inuu halka virtualization ku jiro ayaa aad iyo aad u muhiim runtii qofku markuu soo iibsado disable bay noqonaysaa marka halkaas waa inay virtualization waa inuu disable ku yahay aad enable ku yahay waa okay marka runtii casharkaas waxaan filayaa inuu aad iyo muhiim yahay marka computer la iibsanayo inuu qof kasta oo computer iibsanayo inuu iska eego waad maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على جميع أصحابتي كل الدول إرجع على تيك توك إيجا حدن عشركم معكم بارتجيني قيبتني أفراد بنقطنا إن شاء الله إيقاعكم كمبيوتر لو تشابيو قيبته راح نقص على إيقاعكم لو تشابيو ديسك أما هارد درايف كأنتوا كويه ستورج جودة كمبيوتر كله أنتوا كونوا قايو عشركم معكم فرق دونا إيقاعكم لو تشابيو هدي على كارديو ندوة إنه هو شقينين كان وايرلس كأي ندوة كل دوينهم كان ندوة السوق إنه هو شقينين كلام مركز دوني أجنال كواحد يقول ده CMBD بنقرناه marka corridor aad u gaaban bay qornaa waxaan qornaa ping 127.0.0.1
ka jawaabta ku soo baxaysa haday sidoo kale noqoto waa sax uu shaqeynay haday ka duwanaato ma shaqeynay interbinary wuxuu ku sheegay replay from jawaab ka timi numberka intaas oo beta type-ka inta la qaatay LLT-geedu uu 128 yahay waxaad aragtaa 0 loss baa dhacay afar bakad baa la diray afartiiba waa la helay marka iminka macluumaadkaasi wuxuu ku sheegay in shaygaasi maxay uu shaqeynayo ku sheegay marka hatta iminka mid aan shaqeynaa aan iska ilaa bingi oo numberka tusaalaan qaldan 128.0.0.1 haddaan idhaahdo jawaab soo baxaysa horta xogaa bay qaadanaysaa marka koowaad marka labaad waxa soo baxaysa time request time out ama waxa soo baxaysa destination host unreachable labadaba hadda aragto networkaas kuma shaqeynay networkaas kuma shaqeynay hadii imika mid kale aan isku dayaa 192 bingi hadaan ka horeysiiyo bingi 192.168.90.100 kana waxa taa ma shaqeynayo oo wuxuu soo qorayaa request time out ama wuxuu soo qorayaa hadda maxaad aragtaa destination host unreachable destination kan hosting kan lama gaari karo destination kan loo tilmaamtay lama gaari karo soo qorayaa marka laakiin jawaabta la idiga doonayaa maxay markaas ku soo baxday waa jawaabta iskuma xidhna network dad ku xidhmi kartid wireless ku shaqeynaya waa okay wireless ku waxa laga eegaysa task manager-ka waa kan wifi waa kan uu ku shaqeynaya protocol ku shaqeynaya waa kan connection type-ka waa 802.11n buu ku shaqeynaya marka numberka IP-ga la isdiyo weeyaan waxaan filayaa marka casharkaasi inuu aad iyo muhiim yahay waa qaabka network loo check gareeyo waana party 4 qaabka computer la isaga check gareeyo partigan way socon doonaan haddii la qadhigo insha Allah waa baasantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا جماعة أصحابتك الدوين على تيك توك جحرا عشر كهرو حن كسو هذا الله يمر الكمبيوتر اللي يبسني يوم مسكحة كمبيوتر إلا إيغو ومسكحة هذا يكتب سبيد كذي حواليه عشر كان حن كهد دونا إن شاء الله قاب كان لو إيغو رام كأما ميموري جا تمبريري جا قاب كمبيوتر لو إيغو هذا ميموري جاني يقول شو RGB محل إيجيا لبا قدب بالإيجيا آدمي صدق بعد إنه أي الإيجيا وحل إيجيا RGB هرتها أنت عاد استعمار السؤال storage kan inta oo haysato RAM-ka kan waa 8GB baan hadda haystaa nooca uu yahay aad buu yahay DDR3 waa casri uu fiican yahay DDR4 iyadana waa la isticmaalaa ka DDR horta inuu yahay waa muhiima oo qadiimi hadda uu yahay kuwii hore qadiimiga haduu yahay waxyaabo badan baa soo baxaya fast page RAM qaar hore loo jiray marka DDR ka inuu 3 yahay iyo 4 yahay labada way mid noqdaan gaar ahaan waa inuu soo dhim yahay gaar ahaan waa inuu soo dhim yahay oo hadduu desktop yahayna waa dhim haddii kale waa soo dhim weeyaan hadduu laptop yahay waxaan kala doonayaa isla fahanno halkan haddii aad isticmaasho alahan oo kale maxaa ku banaan 4GB oo kale soo iibsatay halkan waa inaad eegtaa slot usage imise good baa ku banaan RAM la gelin karaa imika aniga waa 2 of 2 macna 2 of 2 waxa weey laba good baa ku banaan labadii good waad buuxsatay laba RAM baad kala gelisay mid 4 iyo 4GB ayaad kala gelisay marka hadduu 4GB computer-kaagu yahay iibsanayso halkaas hadday 2 of 2 ku tahay waxa weey labadiiba way buuxaan weeyaan aad buu halisay hadoo xataa slot-un waxa ku jira markaan saa u dulgeeyo fiirsada waxa ku jira 4GB slot-un waxa ku jira 4GB soo maragta marka meel aad ku kordhisaad helaysaa marka meel aad ku kororsato oo aad ku kordhisaad helaysaa marka waxaan filayaa casharkaas inuu aad iyo aad muhiim yahay wad maasan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم أصحابتك الدول اللي على تيك توك جحرا وحن نتوسط دور إن شاء الله وعشر كي هراء الصور إنه وحنا كمبيوتر اللي يسنى لنا على رام كائن ماشي لغاية أو هذه المهمة وحن ما تلاقي دور على هارد درايف كا أما ستورج كجود كمبيوتر كله يستوي الحق اللي أنترته وحن تكون دور هل كان تاسكي مانجر بان لا هاي تاسكي مانجر مثلا صار وصل في توحنا تيجي performances كا وحن تيجي دور disks ka diskiisa markaa imkaas anigu waxaan haystaa laba disk C iyo D waa laba partition hal disk baan haystaa oo disk 0 baa lagu magacaabaa waana active weeyaan waa tan shaqeynaysa hadda percentage-ka hadda ka isticmaal haday jam tahay waan arki doonaa jam qaabka down loo dhigo loo yareeyo imka aniga 2% waan isticmaalay jam maaha marba 100 gaadho computer aad buu kulaanayaa si qaab loo xaliyaa waan la soo wadaagi doonaa insha Allah hadaba xajmiga hard disk-ga kugu jirta waa tan waa 400 iyo 66GB weeye 406 waa capacity-ga ay leedahay waa taas qalaynku waxa la iska dhahaa haddaad imka muuqaalkeeda aan eegno oo computer aad furto 500 baa ku qoran ka system-ka inta kala goosto 500 baa loo tixgeliyaa marka meesha kale muhiimka ee aan doonay inaad fahanto ee aad eegto waxa weeyaan type-ka iyo nooca ay tahay HDD
aniga tiimku waa hard drive. Computer imika casriga runtii halkaas waxay tahay SSD bay tahay marka SSD bay tahay oo solid state drive loo soo gaabiyay. HDD dan waa karhan Saturn isticmaalaya waa nooc kamid ah hard drive-yada marka HDD baan isticmaalaya. HDD runtii waa mid hore la isticmaali jiray muddo dheerna waa ilaa hadda aad baa loo isticmaalo computer wax kale kuma shaqeeyaan laakiin mid cusub baa jirto loo yaqaan SSD. Computerada wixii dambe hadda la dhigo halka waynaad ka eegataa inay tahay SSD inay tahay marka waad maasantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.